geega inta way soo fadheenay gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Walaweyn geega shir jiraayid oo soo qabada xalay oo dadka aran la leeyahay aad leeyahay yaa ku dhuguntiini waxa waaye qofka halkii faaliya faaliya aad loo faylinya haddana waxyaabo isku dawada waxyaabo macnaha oo wala shaqadiis iyo wala shaqadiis ahayna kullu badul mar macnaha taas taariikh soo gudbina faanti ilaahay dhaho wali oo saxay wali qalad badii halkaan ku cadayna faanti ilaahay dhaho yarinta action lagu biyo ay kulli qofkii qofkii kulli hatta ishraad salaan kadib maanta ay taariikhu tahay 19 bisha koowaad ee 2022 anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Walaweyn waxaan rabaa inaan warbixin guud aan ka siiyo shacabka guud ahaan ku dhaqan degmada Walaweyn iyo nawaaxigeeda inta aan joognay maamulka waxyaalihii noo qabsoomay iyo waxyaalihii maxay yiraahdaa aan ku fikiraynay aan qabanno wixii noo suurtagalay iyo waxyaalaha aan hiigsanayno marka intaas maanta maalintii oo la soo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo koonfur galbeed isoo magacaawday gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Walaweyn waxay baablaaj ninka ma dhahay waxyaabaha nin qabsoomay in aan sheego rabo waajibka hayta in aswali isqabad in isku faalo iska dadka in asoo sheego bulshada waliba shayaan saday maamulka waliba isku qabadii horumarkii isu daarsi waxyaabo badan oo qabadii kulli macnaha waxa waaye in bulshada sheegto yahay ka badan oo isfaaliyo reerkiis nugtay ka soo marka aan intaas ku guuleysanay oo maamulkii hal dhinac iskaga soo jeestay horumarintii iyo wixii dhibaato adiyaan ka jiray ka qabashadiisa iyo in horumarin la sameeyo marka labaad waxay ahayd waxyaalaha aan ku guuleysanay oo hadda noo suurtagalay oo maanta maamulka degmada guud ahaan iyo dadka deegaanka dhan ay ku faanayaan in arrimaha ammaanka degmada oo la iska kaashaday ay ahayd arrin aad oo maxay yiraahdaa degmada dhibaato weyn ay ugu jirtay iyo nawaaxigeedaba marka awoodda aan saarnay oo bulshadana markaas ana imid markaan xafiiska fadhiistay waxyaalaha ay aad noogu soo jeedinayaan ay kamid ahayd in dadkan oo deegaankan iyo nawaaxigiisa haddii ahaan lahayd safarka wadooyinka baabuurta mara haddii ahaan lahayd gudaha iyo ummadiyo oo naftikeeda lasii kala geeyey sidaan wada ognahay dagaalo tiro badana ka dhacay degmada Walaweyn oo u dhexeeyay qabaa'ilo oo dad oo deegaanka isla degan iyo maxana nooc kasta waji kasta uu yeeshay oo dadkii deegaanka dhexdooda ay nin waliba meeshiis uu shak ku jiray markii annaga ka maamul ahaan ku guuleysanay inaan isku fikir iyo ka noqono inaan dadka u adeegno waxaan ka sii shaqeynay in aan ninka ma dheey deegaanka dad badan la isku horjeeyay la isku diraayay qabaa'il badan isdagaaleen markii uu qoynay xasiloon badan hadii ama leekimada kulley ma ku dhalaayay taas qawaa'ilda isku horjeeyo oo isku diro ninka foostuwan ku hay isu waay ninka intii isku diro qawaa'ilda ku shaqeeya habeen imaan ku hay isu waay mar walba ninkan arabtiis macna weeliya istaxgal bulsho war istaxgal bulsho ninka seen fahmayo istaxgal bulsho dirsabeel ku shaqeeya daafada ka tilaale istaxgal bulsho ma ninkan tigrata kooy masiir umraad ninka eedeel ku ilaahay abuurto ku aqbala amru ku weelawna ma jirto habirate hadii istaxgal bulsho fadaaw كو بينو بقلده صوتوسي كدب تتصدق كنتم قبل شو ترى أنا بقول شو أنا كان شو عليه ما أنا يريد أنتي همر إنس كويري ولا هذا اللي جرته ما هاي إلا هذا عرفتنا ما كسر haddana dadkii iyo ciidankii iyo ummadii la siimiday markaas haddana waxaan aan aad hadda ku guuleysanay alxamdulillah oo maskaxdeeni iyo muruqeeni iyo maalkeeni baan isku geynay in ciidamada kala duwan ee deegaankan ka shaqeeya hadii ahaan lahayd daraawiish hadii ahaan lahayd SNA gaar ahaan ururka lixdan afraad oo Walaweyn guutada toddobaad ee ka howlgala iyo booliiskii degmada iyo maamulkii inay isku fikir aan ka dhigno oo aan hal dhinac ugu soo jeesano xaalad kasta oo xun oo amniga liddi ku ciidankii shacabka iyo midayne isdhexgelini wada socdaal suubeeni muruqani maalkan gelini dhihi kulli inna ma markaatu in ciidan walda inta ciidankii daraawiish isnaayta in la baabi'iyo hubsho xitaa ka xaraysni baldogle oo ay taa qoom ma nagaday kawalay ko hamalilay daraawiish naftiyo nin walba hadana markii kama dhalaayta adana wardo arqan din qosle muruqani ya maalkan muruq bakasnay maal isgili gabi
ninka oo macna ay shaga meel ajib ko yar furnaay naftiis oo leebahay maalka marka u soo geli intii u siyaad ku shaqayso ee maalka tacbuday maayna maal u soo geli mijir taasa ku dheer maal u soo geli degmada ma jirto si laakiin maal ku subsadooy okay aan ku sii socon degmada iyo hareeraheeda iyo safarka wadooyinka gaadiid ka shaqeeyaba saas waxaan ku bixinay awood kasta oo wax kasto annaga aan awoodnay in amni la helo ayadoon amni la helin nololna ma jirayso sidaas darteed amnigu waxay ahayd arin oo la iska kaashaday oo aanan cid gaar ahna loogu deynin hadday ahaan lahayd laamihii amnigii hadday ahaan lahayd gudoomiyihii degmada hadday ahaan lahayd xafiisyadii kale degmada iyo nooc kastoo ciidan ah degmadu ka howlgala ninkaan wuxuu dhahay awood weliba anaga aan lahayn waan gelinay si amni loo helo ujeedada kuwaad aan ku weydiinaya waxay tahay ninkaan gadoomiye arrin bulsho miyaa mise gadoomiye arrimaha amniga waayo ninkaan shaqadiisa horta ma kala garanaa saaxiibtaan kuu sheego ninkaan shaqadiisaba systemka dowladaba wallahi nin saas fikirkiisa oo aqoon u leh inaan ahayn hadeerba ku daliil ah amniga haddii laga hadlayo amniga gadoomiye ku-xigeenka amni ayaa joogo waliyahan cabdullaahi guudow asaga wixii amni ah laga hadlaayo asaa laga rabaa ina ka hadlo wixii amni ah ninkaan arama bulsho waa inuu bulsho isku akaado waa kulley bulsho hadda oo hebel dhika isku keeni karno meesha ma biyaalanba ma ku jirto tan kale amniga haddaa u racnana cabdiqafaar wiila waddadan ku shaqeynaa brobokis wato shirayaa laga watay xawaar siraa la geeye wax looga soo dhacay baawarkiio jabsan bartaas loo soo dhigay shirayaa lasoo dhigay ina taree laami lugaha laami loogu gujiyey marka amniga hadlaya aawey tan kale waxaa intuu asu joogay meel qofay oo macnaha ii sheega dhaawac ku dhaqan degmado labeen waxaan ognahay 19 bisha December in ciidamo oo gudaha ay soo galeen isku rasaasadeen islaan masaakiin ah soo gudaha ay ku dhaawacantay way jirtaa waxaa kale ogtahay noo sheeg dhaawac waxaa kale jira gurigiisa hortiisa wiil Abduqaadir Maxamuud wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ahla xildhibaanka isaaq awow wiil adeer u yahay in gurigiisa lagu dhaawacay hortiisa dhacdo kale sheeg dhacdo kale Daawud Buule qof beeraley ah ciidan meesha ku xabaday ku dhaawacantay iyo waxyaabo kale badan aan la soo koobi karinba hadda meesha amniga ma jiraan eemiya wax la ma jiraan okay tan kalena waxaa macnaa si gaar ah waxaa loogu macalinayaa oo maanta oo juudi ku bixiyey asa carada u jiifo taliyoonistaas macnaha taas waxaa looga mahad celinayaa waayo nin oo inta gurigiisa ahayn ilaa 2 bilood iyo ka badan joogo waa degmada Walweyn si wax ku hagaagi lahaayeen si wax asas loo toosin lahaa ilaa hadda ku jiro haddii amniga okay aaleed taliyoonista bixi lahaayeen ciidamada daraawiishta koonfur galbeed eemiya asaa bixi lahaa badii nabadda okay aaleed ay aan ku sii socon rajaynayna sanadkan 2021 waxay noogu soo dhamaatay inaan la tacaalno dhibaatooyinkii degmada ka jiray inaan xal muhiim ah ka gaarno alxamdulillah waan muuqataan xal ka gaarnay sanadkan 2022 waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay nafta nagu simo in aan ka shaqeyno arrimaha horumarka deegaanka istiraatiijiyad sax ah oo deegaanka lagu horumarin karana oo hadeertan diyaariskeedii uu noo socdo oo sanadkan oo lagu shaqeynayo oo meel fiican ay marayso mar dhowna aan la soo wadaagi doono bulshada Walweyn iyo saxaafadda guud ahaan aan la soo wadaagi doono ay ka mid tahay haddii ahaan lahayd nadaafadii deegaanka laga shaqeeyo haddii ahaan lahayd dhakhtarka ama isbitaalka ay bulshadu ay ku fikirayso in arin oo reer Walweyn waliba waxaan rajaynaa hadduu ilaa raalka noqdo waa loo baahan yahay kaalmo caalami ah iyo mid local ah laakiin waxaan rabnaa reer Walweyn inaan u dhisno waxa intaan anaga dib dhigay waxay ahayd inta aan guri dhis lahayn waxaan ka fikiraynaa inaan ummad aan dhisno ummad in la dhisana ka wanaagsan in guri la dhiso alxamdulillah maanta waxaan dareemaynaa qof kasta oo Walweyn ku nool ama Walweyn arrinteeda danaynayo in uu ka fikirayo in Walweyn maanta isbitaal loo sameeyo mar haddii intaas qof waliba niyadiisa ay ku jirto waxaan aaminsanahay in aan ku guuleysanayno anagana procedure-keeda iyo maamulkeeda wixii aan sii diyaarinayno la sii samayn doono hadduu ilaa raalli ka noqdo waxyaalo weyn oo aad u weyn oo ay bulshada ku farxi doonto weliba waxaan kusii hami weyna hadduu ilaa raalli ka noqdo waxyaalaha aan rajaynayno waxaa ka mid ah in dimuqraadiyadda ama Walweyn ay ka bilaawato Soomaaliya meesha ugu horumarsan gaar ahaan koonfur galbeed in ay noqoto si deegaanka looga shaqeeyo horumarkiisa waxyaalaha noo qorshaysan waxaa ka mid ah in hadduu ilaa raalli ka noqdo xaafadaha degmada la dhiso
waaxya haddii ahaan lahayd, haddii laamankii ahaan lahayd, isku xirnaanka bulshada ay weliba haddaan marka ugu horeysa annaga aan ka maamul ahaan aan sii dhisno, marka ugu dambeysa waxaan rabnaa inaan gaarno inta Soomaaliya hal qof hal cod ay ka gaarayso. waxaan rabnaa walaweyn nooc kasta oo gaar ahaan civil society qaybahooda kala duwan, haddii ahaan lahayd ururada haweenka oo hadda dhisan oo laakiin aan tayo sare lahayn, bahdii sportiska, dhalinyaradii guud ahaan, naafadii, qayb kasta oo bulshada ka tirsan oo ururadeeda ah, aan waxaan rabnaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo inay ayagu isdoortaan, annaguna aan ka shaqeyno qof walibana uu fahmo inuu cod leeyahay, wax dooran karo, waxna samayn karo. ninkan wuxuu sheegay inay waxyaabo ay qaban doonaan oo hordhaan uusan sheegi doonin, rabo inuu mideeyo sportiska dhalinyarada intaba. kulley sidaan ka warhaynan sportiska awal waxaa jira 24 kooxood, kulley haddana wax jira waa ogtahay, marka wax faahfaahin oo hadalkiisa sax waaye. waa taa hor u sheegtay sportska 24 kooxood ayay ka jiri jirtay degmada Walaweyn oo wax badan loo qabtay, ku faraxsanaayeen, mar walba safar aadayaan, wax walba loo qaban jiray. hadda laakiin waxaa ka dhisan sportiskii 24 ka ahaa dhan eber waaye, 2 koox miyaa ma 3 koox miyaa ayaa ka dhisanaa degmada. maxaa sababa marka? waxaa sababay maamulkii sportiska aan wada shaqaynaynin, sportiskii hal isbuuc maamulka la raadinayo oo balan loo dhigayo, balantiina looga baxaayo, aan la tixgelinaynin, sidaa ku caajiseen marka. taakuleen kama haystaa miya maamul? wax taakuleen kama haystaa maamul. sportka haddana iigaba caddaynayo in wax maamul oo taakuleen ka haysanin sportiska. kulle sportisley idinka sugayna wixii caddayn ay kumatiga nooga soo qoran. waxbarashada sideeda meel fiican ay joogtaa Walaweyn. waxa aan dareemaynay sanadkii lasoo dhaafay in oo kaalmaha hore ee Southwest oo ardayda imtixaanaadka gala ay ka galeen, intaas in kasii dhiman lasii hormariyo oo jaamacada la keeno labada hadduu dhammaado, in ay ay niyadooda ay ka saaraan in ay kaalmo ay ummad kale ay weydiistaan, ayagoo isku tashtaan. marka waxyaalaha haddirtan oo qabadka oo aan ku guuleysanayna waxaa ka mid ah ama aan bilownay oo haddan meel fiican ay marayso. wax kastana markii la bilowbo waxbaa laga sii baranaa. maalmihii ugu dambeysay waxaa laga shaqeynayay in nadaafadda oo qashinkii magaalada gaar ahaan meelaha aadka ugu badan ee suuqyada ee bulshada iskugu imaanayso, maadaama cudurro ay ka dilaaci karaan oo wadankan hadda cudurro badan ay corona uu ka mid yahay oo caalamkan dhibaato badan ku hay, in nadaafadda iyo xoog aan saarno. maalmahan bilow ayaa laga sameeyey, wax badan dhalinyaradu iyo maamulkii wada jiraan la wada shaqeeyey, haddana meel fiican ay wax maray. marka qaab baan ku bilownay oo bilow ahayd oo hordhac ahayd. meelo badan oo qashin buuxaan oo nadaafadda aan ka qabana ayaa jirta, marka hadalkiisa ruma u qaadanaa mise 5 qofood degmada Walaweyn nadaafadda ma ka shaqeyn kartaa? oo maya 5 qofood min qofna qofkan $2 la siinayo, $2 haddana dadka markay shaqada dhiidkooda qoyan yihiin dhan lama siiyo ilaa ay galabta. عشان taas waxa uu dhiila qasad dawladda waxba kuma jiraan, ana baxnaa waa ma intaan bilood anshuurta la qaaday qasad ku xarooto ma jirto. waxaan dibadaha ka maqlaayay banaanka in daraad la bilaabay ayaaba guna aan ugu riday qasada aan maqlaayay kulli haddeerada ku jira haddii kale ma sheegi kareen. okay, nadaafadda uu sheegana maalin walba miyaa la qabtaa mise? maalinta kulweynaha ayaa la qabtaa. saas hadda ma jirtaba, hal maalinta axaddaa la qabanayaa, axaddii axaddeeda waayo. marka qashinka waxaa loo baahan iskarogo in la keeno, qashinka baala la qaado, qashinkii la dargeliyo, kooxyaal badan xaafadaha in macnaha gees loo habeeyo. qarashkaas dhiibay dhan baan diidayaa, ma fahamti? nimanka inay wax galaan maahine inay degmada wax ku celiyaan marna ma ogolaba. hadda waxaan leedahay wax nadaafad lahay maba jiraanba. maya waaga hadda cadaynta suaadkaas ummadda waa la tusi karaa, reer Walaweyn way ogyihiin meel walba qashinka dhowaan. markii aan si dhegeysan haddana hadduu Ilaahay raalli ka noqdo waxaan rabnaa inaan qorshihii hadda loonayo oo nadaafadda ah in wax badan aan ka bedelno, oo in gaadiid la sameeyo oo qashinkii qaado oo meel la iskugu geeyo oo magaalada dhexdeeda laga saaro. sidaasna marka waxay u baahan qorshe dheer u baahan tahay. qorshaheedana hadduu Ilaahay raalli ka noqdo isbuucyada ama isbuuca soo socdo hadduu Ilaahay soo dhammaystiran aan rabnaa inaan soo gudbino, si oo guri waliba qashinka ka soo baxa meel loogu talagalay oo qashinkaas la dhigo inay jirto, qofka gurigiis ka soo qaado uusan wadada iskaga farjin karin,
waayo maalmaha waxyaalaha aan ka shaqaynaynay waxaa ka mid ahayd markii lasoo xaaqo waxaa arkaysaa qashinkii shalay meesha kasoo xaaqday biri meesha uu yaalo marka si taas aysan u dhicin waxaan rabnaa in oo si guud ah qof waliba gurigiis qashin kasoo xaaqo meel loogu talagal inay jiri karto qofkaas meesha geeyo meeshaasna uu markaas maamulka nidaam u sameeyo qashinka looga qaadayo marka nadaafadu waa nisful iimaan qof waliba haddii ninkan wuxuu dhahay in gaadiid la sameeyo oo qashinka lagu qaado banaanka la geeyo lagubo qashinka meesha lagu xaaqo in lagu soo shido taas sax tan macnaha erigan waan ku raacsannahay qashinka marka la qaado in dadweynaha kusoo celiyaan bartiisa waxwaaya waa wax aada loogu qurax badan yahay qashinka meesha laga qaado dadweynaha waxaa loogu baahan yahay iyagana nin walba gurigiisa in jabaan ku aruuriya qashinka sidii xamar oo kale isbuuci walba hal mar maamulkaasna gaari soo diro gaarigii lagu qaado taas waa ku raacday taas waa ku raactan waa ku raacsanahay tan okay hore aan sii socono arrinta isbitaalkana marka la dhagax dhigo qof waliba degmada Walweyn ku nool iyo qof waliba degmada Walweyn danaynayo iyo guud ahaan maamulka koonfur galbeed iyo wasaaradda caafimaadka iyo cid walba shaqo ku leh iyo caalamkan markaas waa ka rajaynayna inay soo garab istaagi doonaan oo la caawi doono waan rajaynaynaa sanadkan gudihiisa inaan ku guuleysan doono mashaariicyo tiro badan wuxuu dhahay isbitaal ayaan dhisaynaa markii dhagax dhigayana waxaan isugu wacaynaa bulshada degmada Walweyn oo dhan arrintaas maxaa ka leedahay isbitaalka markay dhisay maamulka cashuurta waa u dhisaa kulli asag wuxuu dhahay inuu dhisaayo isbitaal cashuurta ka dhiso ama hay-ada kale u kaashada ama maamulka koonfur galbeedba garab ha ku siiso isbitaal marka hore waxaan kusi isbitaal marka hore in ilaahay looga soo talgo ilaahay noo fududeeyo horta ilaahan aan ka baryaynaa isbitaal degmada loo dhiso marka hore tan kale madaxweynaha dowlad maamul goboleedka koonfur galbeed mudan cabdicasiis maxamed xasan lafti gareen iyo gudoomiyaha baarlamaanka mudane fiqi iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudan cabdullaahi maxamed farmaajo iyo caalamka oo idil ayaan isbitaalka aan ka codsanaynaa ma isbitaal maamul may awood u haayo maamulka gurnada ursinaasa kama badnaya isbitaalka dhisaayo muxuu yahay absolutely taas macquul maaha hadda maamulka koonfur galbeed iyo maamulka dhexe dowladda federaalka ka sugayna waan ka sugaynaha okay aan sii dhegeysana hadalkiisa hadduu ilaa halka noqo waxyaalaha aan ku guuleysan waxaa ka mid ahayd in hay-adihii caalamka oo in muddo ah oo Walweyn aysan soo gaarin inaan Walweyn hadduu ilaa noqdo aan keenno ayadoo maamulkii gobolkana uu kaalin weyn uu ku lahaa uu naga caawiyey annagana degmada hadday ahaan lahayd xafiiska arrimaha bulshada iyo guddoomiyaha degmada aan fariimo kasta iyo cid kasta aan u dirnay markii lagu guuleystay amniga in ay la imaan karo degmada Walweyn shaqo kastana laga fulin karo in hay-adihii caalamka ugu sareeyey oo noocyadooda kala duwan inaan Walweyn aan keennay ay magaalada nagula wuxuu dhahay hay-ado aan imaan jirin degmada Walweyn amni dare darteed ayaa hadda aan keennay kulli anagana waxaa maqaam u nahay misana markaati aan ka nahay in hadda hay-ad cusub ay imaatay aysan jirin adina kulli fikirkaaga waxaad hayso noo sheeg saaxib sare horta sadar muqlo su-aal ka dhan og bulshada reer Walweyn og caalamka oo idilba hay-adaha Walweyn ku sugan hadeer waa hay-ado cusub hadda la keenay maba jirtaba kuwii hore u joogay oo Walweyn ka shaqayn jiray ayaa la leeyahay shaqaalaha bedel haddii kala cer kuwii hore u jooga aan nabad guurnooyaa iska dhaa wax la soo daa'imay ka fiirsa arinay yihiin hay-ado cusub ayaga ay keeneen maya ma jirtaan ayuub ma haddaa la keenay may weligeeday jirta hal wiig way xirneed wax badan aan ka qaban u dhahay hay-adaha tan kale haddaan ku siiyana maamulka sanadkiisa wax yaraa dhiman wax u kordhiyay reer Walweyn oo dhanka hay-adaha ma jirtaba hay-adda kaararkii la bixiyey waa maamulkii hore kaararkiisa niyuwe soomaahan WFP okay hadda hay-adaa jirto niyuweys lahayo oo wax bixiso taas kaararkii lagu bixiyey bashiye masto hadda oo la qoriyaa oo 763 ya aaway soo dhee ma hayo si lijir ay saxsan abili taas lama hayo goode iyo maanta la geliyo laakiin dad badan oo masaakiin hamigooda waxay ku jiraan in lacagta ay soo dhacayso wallaahi waxaan weerooleen waa ogyihiin maanta lacag soo dhacday xilligii hore maamulkii hore maanta lacag soo dhacday lacagtaas aanan dhamaysaninba
تنكر كسر دوغ دعدي ويجست تي صوت عربة توكل لقرايبة تي لقرا دمانم توكل صوت عطبة ولب أيضا هي إذا أم درجة أنا إمام كريم ولا وين صح؟ طبعا يو أسكان الله يقول فقوم نعم قفل المحو قبتوا على الشيء ها ما فهمت هي أذا دقمة ولا وين دقمة ولا وح ونسيب بدنا ما بجربه وين يهون والله وعنوا متى القراية قرات على دمانم متكلاي ما دبر والله قرية ملا صوت عظيمة متكل هير والبيل ورث كرابه حتى والله مركنا سوق ما كان إمام الكوريا هذا بدنا ومتعدينيس واي هذا 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 هي أدي هراء يجوا ولب أي نفتح كود عديد كجرام أي عديد كجرام بدي إذا واحد أصبع عندك أنا مجلس كله أصحابتنا قالي إيه برنامج ميشان كسحرنا إن شاء الله قف في أغلى وكبح سكراء قف كلامنا كله وهن لنا فكر كأنا كومنتي النصورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.